tobanka dal ee ugu awooda badan caalamka dhinaca hubka. dalalka caalamka waxay ku kala duwan yihiin dhinaca awoodda ciidanka, hubka iyo farsamada dagaalka. haddaba waxaan halkaan idinkugu soo gudbinaynaa tobanka dal ee ugu awooda badan caalamka dhanka militariga. dalka Masar. ciidanka dalka Masar ee howlgalka waa 438,600. miisaaniyadda dhinaca difaaca ee dalkaasi waa 7.85 bilyan. taangiyada 4,140 iyo weliba dheeraad. gaadiidka gaashaaman waa 13,900. diyaaradaha dagaalka ee dalka Masar waa 1,133. maraakiibta qaada diyaaradaha helikobtarada waa 2 markab. maraakiibta ciidanka badda ee difaaca maraakiibta kale ee dagaalka waa 11. maraakiibta dheeraysa ciidanka badda waa 2. maraakiibta gujiska dalka Masar waa 8. dalka Koonfur Kuuriya. ciidanka dalka Koonfur Kuuriya ee howlgalka waa 625,000. miisaaniyadda dhinaca gaashaandhigga ee Koonfur Kuuriya waa 33 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. taangiyada dalkaasi waa 2,500. gaadiidka gaashaaman waa 2,700. diyaaradaha dagaalka waa 1,451. maraakiibta qaada helikobtarada waa 1. maraakiibta waxqarxiya waa 12. maraakiibta ilaalisa maraakiibta kale waa 12. maraakiibta dheeraysa waa 16. maraakiibta quusta waa 12. dalka Turkiga. ciidanka dalka Turkiga ee howlgalka waa 639,551. miisaaniyadda dhinaca gaashaandhigga ee dalka Turkiga waa 18.32 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. taangiyada dalkaasi waa 2,400 iyo dheeraad. gaadiidka gaashaaman waa 7,550. diyaaradaha dagaalka waa 1,007. maraakiibta waxqarxiya waa 16. maraakiibta ilaalisa maraakiibta kale waa 8. maraakiibta quusta waa 13. dalka Jabaan. ciidanka dalka Jabaan ee howlgalka waa 250,000. miisaaniyadda dhinaca gaashaandhigga ee dalka Jabaan waa 40 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. taangiyada dalkaasi waa 1,080 iyo dheeraad. gaadiidka gaashaaman waa 2,850. diyaaradaha dagaalka waa 1,590. maraakiibta qaada helikobtarada waa 2. maraakiibta waxqarxiya waa 43. maraakiibta ilaalisa maraakiibta kale waa 6. maraakiibta quusta waa 16. dalka Ingiriiska. ciidanka dalka Ingiriiska ee howlgalka waa 153,770. miisaaniyadda dhinaca gaashaandhigga ee dalka Ingiriiska waa 58.6 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. taangiyada dalkaasi waa 246. gaadiidka gaashaaman waa 5,950. diyaaradaha dagaalka waa 879. maraakiibta qaada diyaaradaha waa 1. maraakiibta waxqarxiya waa 6. maraakiibta ilaalisa maraakiibta kale waa 13. maraakiibta quusta waa 11 oo awood nukleer ah leh. dalka Faransiiska. ciidanka dalka Faransiiska ee howlgalka waa 360,900. miisaaniyadda dhinaca gaashaandhigga ee dalka Faransiiska waa 35.7 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. taangiyada dalkaasi waa 423. gaadiidka gaashaaman waa 6,800. diyaaradaha dagaalka waa 1,305. maraakiibta qaada diyaaradaha waa 1. maraakiibta waxqarxiya waa 12. maraakiibta ilaalisa maraakiibta kale waa 11. maraakiibta quusta waa 10 oo awood nukleer ah leh. dalka Hindiya. ciidanka dalka Hindiya ee howlgalka waa 1,427,258. miisaaniyadda dhinaca gaashaandhigga ee dalka Hindiya waa 56 bilyan oo dollarka Mareykanka ah.
taangida dalkaasi waa 4,310 gaadiidka gaashaaman waa 6,800 diyaaradaha dagaalka waa 2,100 maraakiibta qaada diyaaradaha waa 1 maraakiibta wax qarxiya 11 maraakiibta ilaalisa maraakiibta kale 14 maraakiibta dheeriga 26 maraakiibta quusta 15 oo 2 ka mid ah ay qaadaan nukleer dalka Shiinaha ciidanka dalka Shiinaha ee howlgalka waa 2,300,000 miisaaniyadda dhinaca gaashaandhigga ee dalka Shiinaha waa 210 bilyan taangiyada dalkaasi waa 810 gaadiidka gaashaaman waa 4,899 diyaaradaha dagaalka waa 3,100 maraakiibta qaada diyaaradaha waa 1 maraakiibta wax qarxiya 28 maraakiibta ilaalisa maraakiibta kale 49 maraakiibta quusta 69 dalka Ruushka ciidanka dalka Ruushka ee howlgalka waa 1,310,000 miisaaniyadda dhinaca gaashaandhigga ee dalka Ruushka waa 66 bilyan oo dollarka Mareykanka ah taangiyada dagaalka waa 15,400 gaadiidka gaashaaman waa 31,300 diyaaradaha dagaalka 3,600 maraakiibta qaada diyaaradaha 1 maraakiibta wax qarxiya 15 maraakiibta ilaalisa maraakiibta kale 4 maraakiib dheeriya 81 maraakiibta kruuska 4 maraakiibta quusta waa 60 oo 39 ka mid ah ay nukleer xambaarsan yihiin dalka Mareykanka ciidanka howlgalka ee dalka Mareykanka waa 1,450,000 miisaaniyadda dhinaca gaashaandhigga ee Mareykanka waa 610 bilyan oo dollarka Mareykanka ah taangiyada dalkaasi waa 8,800 gaadiidka gaashaaman waa 41,000 diyaaradaha dagaalka waa 13,000 iyo dheeraad maraakiibta qaada diyaaradaha 11 maraakiibta qaada helikobtarada 9 maraakiibta wax qarxiya 63 maraakiibta ilaalisa maraakiibta kale 6 maraakiibta kruuska 22 maraakiibta quusta 27 markab oo dhammaantood nukleer